السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كسو دوادا channelkeena Maida Kartoon. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, haddaad nala joogtayna like noo saar, waad mahadsantihiin. maanta asxaabta waxaan idiin wadaa sheeko cusub, sheekadaasoo ku saabsan boqoradii iyo sixirooleydii. caruuree beri baa waxaa jiri jiray boqorad aad u qurux badneed, boqoradaasoo dharka xayeysiisa, caruurtana wax barta. maalin maalmaha ka mid ah ayaa boqoradda waxay go'aansatay inay soo aado ugaarsigii ayay soo aadeen iyada iyo shaqaalaheeda. kadibna si ay iskaga ugaarsanayeen duurka dhexdiisa ayaa waqtigii aad ugu dheeraaday. laakiinse halkaas waxaa deganaa naag sixirooley ah iyo labadeeda walaale, waxayna deganaayeen god meesha ku yaalo. sixirooleyda waxay ahayd maalintaas dhalashadeeda, laakiinse sixirooleydan dhalashadaani maysa ku qanacsaneen, aad ayayna u caraysneed. sababtoo ah waxay tiri, aniga dhalashadan kuma qanacsani, waayo sixirkayga wuu shaqayn waaye 2 sano ee lasoo dhaafay. aad ayayna u carootay, walaalaheedana aad ayay uga cabsadeen. waxayna tiri, tani dhalasho ma ahan ee waa murugadeyda iyo madax xanuunkayga, aniga waxaan sameeya ma aqaano, xaaladeyda way qasan tahay. walaasheed ayaa tiri, abaaya aniga ayaa fikrad ku hayo, aniga isoo eg dhankayga si fiican usoo fiiri. abaaya caaradan guriga inoo joogta ayaa sixiraysaa, hadday dhimato sixirkaaga ku dhimato, sixirkaaga wuu shaqeeye. naayaa naga aamus waxyahay doqonta ah, waxaad kula ogtahay malahane sidee caaradan loo sixrayaa, ma taqaanaa horta caaradan. sixirooleydii ayaa aad u xanaaqday oo qaylisay, iga aamusa kulligiina, aniga dhalashadan maanta diyaar uma ihi, madaxaygana aad ayuu u booqsan yahay, adinkana maalaa yacni ayaa halkan ku haysaan. abaaya sug, wax kale ayaan kuu sheegayaaye. naayaa waxba ha ii sheegina, iga aamus waxyahay doqonta ah, wax aad kala ogtahay ma jiraan, halkan ayaad buuran tahay saa cunto cunaysa. abaaya aniga ayaa fikrad ku hayo, halkan waxaa degan oo dariskeena ah gabar boqorad ah oo aad u qurux badan, gabadhaas oo dharka xayeysiisa. marka abaaya ka waran gabadhaas haddaan sixirna? waa arrin fiican, hadday ii gashe. kulligoodna saddexdoodii sidaas ayay ku heshiiyeen in la sixro boqorada dariska ah. ka waran abaaya hadduu kuu shaqeeyo sixirkaaga maanta, soo dhalashadaada ku farxi maysid iyo keegaaga, annaga farxadaada ayaa wax inoo ahe. wax farxad ama haysto, wax walbana way dhammaadeen. haddii laakiinse uu shaqeeyo sixirkaasi, waxaan ballan idinka qaadayaa inaan hadiyado qaali ah idinkana idiin guddoonsiiyo, anigana farxadeyda ay soo laabato, gurigeenna uu wax walbo kusoo noqdo. haddana waxaan diyaarinayaa sixirkii aan ku sixri lahayn naagta boqoradda ah. kadibna wixii ayay qasqastay, biyihii ayay dabka saartay, caag ayay ku shubtay, waxay tiri orda qaada gabadha boqoradda ah madaxeeda kusoo shubo. way baxeen, gabadhii boqoradda oo jiifta ayaa tinta looga soo shubay sixirkii, wayna kasoo tageen. boqoradii markay soo toostay, timaheeda dheerirkooda dhulka ayay daadsanayeen. qof walboo xaafadda ka mid ah ama shaqaalaha xaafadda ayaa ku kufaayeen, aad ayaana loola yaabay wixii ku dhacay. boqoradii yareed aad ayay u naxday, wayna la yaabtay tinteeda dheeraanteeda oo qof walba ku dhacayo. xalayta iyadoo timaheeda caadi yihiin ayay saaxatay, laakiinse saaka waxay soo kacday timaheeda oo dhulka daadsan, aad ayay u walwashay, wayna murugootay. kadibna waxay go'aansatay boqoradii yareed inay soo baxdo, laakiinse markay soo baxda timaheeda culeyskooda ayay qaadi lahayd wadada dhan. qof walba oo jidka maraayayna wuu ku dhacay, suuqii dhan, dadkii alaabihii dhan ayaa ka daatay. kadibna waxay soo aaday duurka ayay fadhiisatay, weyna iska oysi, waayo waa murugo, tin intaa dheerir la-eg waxaa ku dhacayna aysan aqoonin. ayadoo iska oynaysa ayaa waxaa u timid gabar yar oo duurka ku nool. waxay tiri, maxaa kugu dhacay boqoradda quruxda badneeday? waxay uga sheekaysay tinteeda sidii ay noqotay iyo sidii ay ahaan jireen. waxay tiri, aniga ayaa ku caawinayo, laakiinse marka hore ii sheeg tintaada waxa ku dhacay. way garan weyday. waxay tiri, biyo halkaas ku jira ayaa jiro, biyahaas oo kuwa samsam ah,
qofkii dhexgalana oo la sixrayna tintiisa daawo ayay u noqonayaan, tintiisana sidiisa ayay ku noqonaysaa. xitaa jirkaaga hadduu xun yahay oo boogay in abraqa waad fiicnaanaysaa, wax walbana iyaga ayaa kaa caawin doono. Boqoradii yareed aad ayay u faraxday, kadibna waxay u wacday shimbirihii yaryaraa oo duurka ku noolaa. kadibna waxaa la qaaday boqoradii tinteeda culeyskooda dartiis. waxaa iskugu imaaday shimbirihii dhan oo meesha ku noolaa, waxaana la dhexgeliyay biyihii. boqoradii iyadoo faraxsan ayay biyihii cabaar ku dhex jirtay, kadibna way kasoo baxday tinteedii oo caadi ah. qurux ayayna noqotay, tinteedii sideedii ayay kusoo laabteen. kadibna waxay tiri waxaan kaa qaadayaa xabad tin ah, waxaana loo geynayaa naagtii boqorada ahayd si sixirkeeda uu u buro. waayahay ayay tiri, wayna ku faraxday arrintaasi. kadibna xabadii tinta ahayd ayay ka jartay, waxayna u dhiibtay shimbirkii. waxayna tiri qaad ee naagta sixiroleyda ah madaxa u saar, intaad qaadid si sixirkaasi uu u buro. kadibna wuu qaaday, ayagoo iska casheynayaan ayuu madaxa u saaray. kadibna madaxii ayaa weynaaday oo si kala noqday. kadibna sixiroleydii way fool xumaatay, wejigeeda xitaa si kale ayuu isku bedelay oo wuu bararay. sixirkiina halkaas ayuu ku buray. gabadhii boqorada ahaydna tinteeda sideeda ayay ku laabatay, sidaas ayayna ku nooleed. saxaantii u fashayna way uga mahad celisay.